فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. waxaan soo gaarnay suuratu lmumtaxina aayadda 10aad marka intaa yara suuradda ka dhiman baan caawa dhammaynaynaa haddii ilaha idhaah. ilahi wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeyo wixii rumeeye la yidhi kuwii rumeeyeyo إذا جاءكم هدي ذي مادان إذا جاءكم هدي ذي مادان المؤمنات ضمرك مؤمنات كهاي علي الرسول كيس الرميي هدي ذي مادان مركا ذي مادان مهاجرات يغو سوي جرودي هدي ضمر ذي مادان علي الرسول كيس الرميي oo soo hijrooday ilaahay wuxuu yidhi famtaxinuuhunna imtixaana buu ilaahay leeyahy dumarkii hijrada idinku yimid halla imtixaano. aayaddan waxay ka warramaysaa sulxulxudaybiya markuu dhacay sanadkii 6aad ee hijrada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo nimankii reer maka markay heshiiyeen qodobo dhowra baa lagu heshiiyey. qodobada waxaa ugu muhiimsanaa oo ka mid ahaayo hadda innaga ina khuseeya 2 qodob. labadaa qodob midu wuxuu ahaa muddo 10 sano ah in la sameeyo xabad joojin ceasefire oo muslimiinta iyo gaalada reer maka wax dagaala uuna dhex marin. markaana waxaa la joogaa sanadkii 6aad ee hijrada 10 sano inaan dagaal dhicin oo dagaalka la joojiyo oo dadku isdhex maro la kala adeegto oo la kala shaqaysto nolosha iyo ganacsigu soo noqdo qaraabadii iyo dadkii isa salaamaan oo la kala adeegto nin walbana wixiisa u wato. qodobka labaadi wuxuu ahaa oo qodobadu way badnaayeen waxaa ka mid ahaa qof alla qofkii muslina qof alla qofkii gaala ee muddada gaalada ka yimaada ee muslimiinta xaggooda aada ee muslima in gaalada loo celiyo. waa qodobadii saxaabadu waxoogaa dhibsadeen buu ahaa ilaahayna uu faraj iyo khayr fara badan uu ka waday. qof kasta oo gaalada ka mida oo soo muslimo muslimiinta aada in gaalada dib loogu celiyo. isla markaa at the same time qof kasta oo muslima oo gaalada aada oo islaamka ka carara oo gaalada ku biira inaan la soo celin. waa qodob waxoogaa dee waxyiga waa la qaadanaya laakiin nafta bini aadanku daahirkiisao kale way dhibsanaysa ilaahayna khayr buu ka wado. marka heshiiskaas qof kasta oo muslina qof kasta oo gaal ah oo gaalada ka yimaado muslimiinta soo aada in la celiyo heshiiska sidaa u qoraa rag iyo dumar isku mid bay ahaayeen sem muuna kala qaadayn. ama rag ha ka yimaado gaalada waa in loo celiyaa ama dumar ha ka yimaadeen gaalada waa in loo celiyaa. qof kasta oo soo muslima waa in gaaladii dib loogu celiyaa iyagaa codsaday. weliba markii heshiiska the time of agreementigu markuu dhacaya ee signka la sameynayey waa ninkii gaalada signka u sameynaya agreementiga u galay oo la dhihi jiray Suhayl ibn Camr oo odayaashii Quraysh ka mid ahaa mar dambe sanadkii 8aad soo muslimay. wiilkiisii oo Abu Jandal la yidhaah heshiiskii oon weli la saxiixin buu isagoo weliba xidhxidhan oo rafaadsan buu maka ka soo cararay. nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta oo maka dul jooga heshiiskiina gaalada ay nebiga kala qoranayaan oon weli la saxiixin oon signaturkii weli dhicin buu ninkii gaalada representative-ka u ahaa ee heshiiska u saxiixaya wiilkiisii baa muslimka u yimid
oo muslin ahaa oo magaaladii ka soo fakaday Suhayl ibn Amr oo aan ninkii wiilka dhalay wuxuu yidhi waxaan rabaa heshiiskan aan galayno wiilkayga inaad ka bilowdo oo dib maka igu celiso nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi maya weli dee heshiiskii lama saxiixin not yet heshiiskii weli ma dhicin soo wiilkan ka reeb markaasaa wuxuu yidhi haddaadan wiilkayga ii celinin oodan ku darin oon isaga laga bilaabin wax heshiisoon galaynaa ma jirto markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi bas iska noqo ilaahay baa faraj kuu furi doona iska noqo ninkii oo qaylinaya oo la warnimayo magaaladii i dhibaysay ee adduunka igu cadaabtay ee nafta iga qabatay baad ii celinaysaan baa la celiyey dadkii muslimiinta ahaa ee gaalada loo celinayay ilaahay baa wuxuu u furay exit makhraj ay dhibkii kaga badbaadaan qisadu waa taariikhdu aad bay u dheer tahay ilaahay baa laakiin exit iyo makhraj u furay tabaaraka wa tacaala marka pointiga innaga haddayna khuseeya waxaa weeye heshiiska in gaalada qof kasta oo ka yimaada loo celiyo rag iyo dumar seen bay ahaayeen aayaddani dumarkii bay marka ka soo reebaysaa oo waxaa la leeyahay heshiiska gaalada aada la gasheen ee ahaa qof kasta oo iyaga ka yimaadoo soo muslima in loo celiyo dumarka ha ku darin gabadhii muslimada ee gaalada ka soo cararta ee muslimka u timaada iyaan gaalo lagu celin laakiin ragga stiil waa la celinaya sababtuna waxa weeye dumarka iyo raggu isku mid maaha ilaahay baa yihi caza wajalla walaysa dakaru kalunha way kala adkaysi badan yihin raggu dhibaatooyin fara badan iyo banishment iyo xabsi iyo jeel iyo dhib fara badan qofna dhib iyo jeel uma adkaysan karo laakiin way kala adkaysi badan yihin ragga iyo dumarka gabdhuhu ama dumarku waxaa laga yaabaa dhib yar oo ku dhacay in ay muxuu ahaa ayba la dhintaanba markaa ama maskaxdoodiiba si kale ay noqoto ama la fara xumeeyo oo lagu ciyaaro laakiin raggii inta badan waxyaabo fara badan bay u adkaysan karaan taasi waa qodobka labaad waxaa la yidhi gabdhaha yaan la celinin oo gaalada yaan lagu celinin laakiin iyaga laftooda markay gaalada ka yimaadaan sidaa lagu dayn maaye they are tested examen baa lagu samey examination ama test baa lagu samayno waxaa la hubinayaa inay gaalada uga yimaadeen ilaahay darti oo hijrada ay maka ka yimaadeen ay ka dhab tahay oo ilaahay iyo rasuulkiisa u yimaadeen oo iimaan uu maka ka keenay oo hijradu ka daaca tahay iyo islaamnimadu iyo inay ujeeddo kala wataan oo ninkeeda intay isku soo dhaceen oo isa soo khilaafeen ay ka soo carartay oyna diin madiine u imanine ninkii oo isdagaaleen ay ka soo fakatay iyo xanaaq ay nimankaa ku xanaaqsantay ama xoola ay la soo goosatay ama ay dahab soo xadday ama ujeeddo kale ay leedahay ilaahay wuxuu leeyahay marka kala hubiya dumarka ilaahay dartii usoo hijrooday ee maka uga yimid dar alle iyo diin jacayl iyo iimaan iyo kuwa intay ujeeddo kale leeyihiin raggooda isa soo laayeen madiinana sidaa ugu soo cararay kala ogaada markaad ogaataan ilaahay baa garanaya horta iimaanku waa shay qalbiga ku jira inuu ka dhab yahay in kale ilaahay baa garanaya laakiin sida daahirka muxuu ahaa inoo muuqata haddii lagu qanco gabadhani inay ilaahay darti usoo hijrootay oo islaamnimo jacayl iyo iimaan ay maka kala soo carartay haddii sidaa lagu qanco after the test ilaahay wuxuu leeyahay gaal ayaan lagu celin somal aayaddu marka masaa'il noocaasa bay ka hadli doontaa oo heshiiskii ahaa gaalada ragga ka soo cararay dadka ka soo cararay in loo celiyo baa dumarka laga soo reebaya oo la leeyahay no dumarka yaan la celin laakiin iyagana waa in la imtixaana oo la ogaadaa marka la evaluate gareeyo waa in lagu qancaa inay iimaan iyo diin maka uga timid oy madiine ilaahay dartii usoo aaday oo islaamnimo usoo aaday waa intaa lagu qancaa u fiirsa marka waana meelaha qolada culimadu ay dhahaan waa min baab takhsiisi sunnati bilkitaab yani waa masale usuuliya meelaha sunnada nebiga sala allahu alay wasalam qur-aanku uu khasisay bay ka mid tahay sababtaa sunnada nebigu markuu nebigu heshiiskaa gelayay rag iyo dumar in gaalo loo celiya lama kala qaadin caan bay ahay laakiin qur-aankaa kala qaaday oo khasisay oo yidhi dumarkii yaan la celin oo si khaasa dumarkii usoo reebay ilahay wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyo waxa alla wixii rumeeye la yidhi kuwii rumeeyeyo idaa jaa-akum hadday idin yimaadaan almu'minaatu gabdhaha ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey mu'minaat waa jamcu mu'mina
hadday dumarkaas idin yimaadaan muhaajiraatin iyagoo soo hijrooday hijradu waxa weeye waa inuu qofku dhul gaalka tago ka cararo diintiisa iyo iimaankiisa isagoo la cararaya oo dhul muslim uu aado for sake of allah caza wajal hijradu waa midaas muhaajiraatin iyagoo soo hijrooday oo gaaladii ka soo cararay diintoodii la soo cararay hadday taasi dhacdo ilaahay wuxuu yidhi famtaxinuuhunna dumarka imtixaan ka qaada imtixaan ha laga qaado testi ku sameeyay iyo examin sida looga qaadayo sunnada nabiga sala allahu alay wasalam waxaa lagu dhihi jiray dumarka markay yimaadaan ma wallaahi baadan u soo cararin oodan maka uga imanin ninkaagii ood isku dhacdeen xoola jacayl ujeeddo adduunyo iyo dan kalood leedahay maka dhabbaa wallaahi inaad ilaahay darti aada maka uga timid ood madiine u timid imtixaan noocaasa baa la marin jiray markaasaa ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka jawaabaya su-aal iman karta oo ah ilaahay wuxuu yidhi imtixaana inay ilaahay darti usoo hijrootay iyo in kale how do we know that how can we differentiate between the one who came from Makkah for sake of Allah Azza wa Jal and those who came from Makkah for seeking adduunyo iyo wax la mid ilaahay wuxuu leeyahay isagaa kala garanaya oo kale og idinku haddaydan kala garanaynin ilaahay baa khabiir ah oo qalbigooda og laakiin idinku daahirka kore wixii idinka soo baxa qaata allahu ilaahay ayaa aclamu ku cilmi badan oo og biiimaanihinna iimaankoodu inuu ka dhab yahay iyo inay xoolo raadin iyo dan adduunyo usoo hijroodeen ilaahay baa og buuri tabaaraka wa tacaala ilaahay baa og su-aasha imanaysa waxa weeye waxaa laga yaabaa inaad is dhahdo why raggu markay ilaahay darti usoo hijroodaan they are not tested wax testi ah iyo examinationa iyo muxuu ahaa lama mariya ragga oo raggu markay soo hijroodaan halla imtixaano lama dhih why dumarka loo imtixaanaya do you know that is there anyone of you who can guess that qof qiyaasi kara ma jira why dumarka la leeyahay halla imtixaano testi hala mariya markay madiine yimaadaan laakiin ragga aan loo imtixaanayn ya that is true waxa wey waa run wey raggii iyagoo la celinayaa sax maxaa la imtixaanaya there is another reason sabab kale baa jira sabab kale jira yaa qiyaasi kara qof qiyaasi kara ma jira ya maxaa badan dhagarta dumarka sirtooda badan macana marka iyagu waxaa laga yaabaa inay ujeedo kala wataan okay in la qabay oo nin ka soo carartay oo aynan ilaahay darti usoo bixin baa laga yaabaa okay ninka laftiisu waxaa dhici karta inuunan ilaahay darti u iman oo bini aadan weeye uu isna ujeedo wato uu raba rag inuu gaado way dhici kartaa waxay leeyihiin culimadu sababta ragga dumarka loo imtixaanayo een ragga loo imtixaanaynin ma badna raggu markay soo hijroodaan inay adduunyo muxuu ahaa iyo waxyaabo kale oo mala yacni ay usoo hijroodaan ma badna ninka soo hijrooda waxaa ka soo horeeya xabad iyo dagaal iyo seef oo ay jihaadku waajib ku yahay ragga nin soo hijrooday guri ma fadhinayo dagaal buu aadayo ama uu dhimanayo ama uu dhaawacmayo ninka marka u badheedhay taas oo sacrifice kaa sameeyey oo og inuu hadduu soo hijroodo dagaal iyo jihaad ka horeeyo ninkaasi testi uma baahan already he was tested by Allah Azza wa Jal because wuu og yahay responsibilitieska iyo dagaalada ka horeeya uu geli doono soo ma laakiin dumarku dagaalku waajib kuma ah so they know inay hawsha simbal waxoogaa iska tahay iyaga aan dhib weyna saareen way iska iman karaan marka iyaga marka waxaa la yidhi soo hala testi garayo hala imtixaan waada ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyow idaa jaa-akum hadday idin yimaadaan almu'minaatu dumarka mu'minaadkii hadday idin yimaadaan muhaajiraatin iyagoo soo hijrooday famtaxinuuhunna imtixaan ka qaada inay ilaahay darti usoo hijroodeen iyo inay waxyaabo kale ay ku dhex wadaan hijrada oy wax u weheliyaan wuxuu ilaahay leeyahay imtixaan ha laga qaado idinku xaqiiqada dhabta ma garanaysaane allahu ilaahay baa aclamu ku cilmi badan biiimaanihinna ilaahay baa iimaankooda ku cilmi badan oo og oo xaqiiqada dhabta inuu waxaani ka dhab yahay in kale ilahay baa garanaya laakiin idinku tastiga wax idinka soo baxa qaata okay maxaa la samaynayaa marka haddii aynu lagu qanco inay ilaahay darti usoo hijroodeen oo calaamadaha iyo saynka iyo ay nooga soo baxdo inay dar alle usoo hijrootay what we gonna do ilahay wuxuu leeyahay fain calimtumuuhunna
haddii aad ogaataan dumarkii soo hijrooday haddaad ogaataan mu'minaatin inay yihiin mu'minaat haddaad ogaataan inay yihiin kuwo iimaan leh ood ku qanacdaan inay dar alle usoo hijroodeen then falaa tarjicuuhunna ha ku celinina ila alkufaari gaalada ilaahay wuxuu leeyahay mar haddaad ku qanacdaan hijradoodu inay ilaahay darti tahay oo inan khaa'inimo inay wataan aydaan dareemin falaa tarjicuuhunna ila alkufaari gaalada ha u celinin abadan waxayna ka mid tahay yacni sida islaamku dumarka waxyaabaha uu siiyey yacni khusuusiyaadka ama waxyaabaha gaarka ama daryeelka gaarka ee islaamku dumarka u fidiyey waxyaaba badan baa dumarka laga dulqaaday oo ilaahay caza wajalla si gooni ah iyaga ugu naxariistay waxyaaba sarfis ah ama ixtiraama ama maamuus ah islaamku dumarka ixtiraamka iyo wanaagga iyo waxa uu siiyey yacni waxa weye wax la siiyey ma jiro waxaaba sharaf ugu filanba dumarka islaamka ilaahay caza wajalla suurad dhan oo min kitaabihi inuu suuratu nisaa ku magacaabay suuraddii dumarka qur-aankana suuratu rijaal ayna ku jirin suuradda la yidhaha suuraddii ragga in dumarkiiba suurad loogu magac daray oo suuratu nisaa la yidhi baaba sharaf ah hadday hooyo tahay respectiga islaamku siiyey waynu garanaynaa dumarka oo xaqii 75% in hooyo la siiyey waynu ognahay 25ka kalena aabba la siiyey markii nabiga sal ly slam uu yidhi yaa dadka ugu xaq badan qof aan la saaxiiboon u sama falo hooyadaa 3 jeer markuu nabigu yidhi baa mar afraadkii aabbaha la yidhi hadday xaas tahay sida looga dadaalay mar meher la siinayo mar la biilanayo mar nabigu yidhi ha laga dadaalo calayhi salaatu wassalaam mar nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam ragga ugu gobsan ee ugu sharafta badan waa ragga reerahooda ugu dhaqano dumarkooda ugu naxariista badan ugu wanaagsan hadday xaas tahayna waa sidaas hadday gabadh tahay oo gabadhaadii oo dhashay tahay nabigu sal ly slam wuxuu yidhi yacni waxa weeye qofkii gabadh koriya ama 2 gabdhood koriya daryeela si fiican gabadhiisa u hagaajiyo oo u wanaajiya wuxuu yidhi nabigu sal ly slam kuna lahu sitran min annaar naartay ka xijaabayan waa encouragement waa dhiirigelin gabdhaha in si fiican loo dhaqaalayo laga dadaalo saas yidhi nabigu sal ly slam marka ixtiraamka uu dumarku islaamku siiyey iyo wanaagga la siiyey meel ay ka heli doonaanna ma jirto naagihii gaaladuna intay yacni beentii loo sheegay iyo wixii ku wareereen bay hadda xaqiiqadii bay ogyihin ilahay wuxuu uhi tabaaraka watacaala allahu ilaahay baa aclamu og biiimaanihinna fain calimtumuuhunna mu'minaatin haddaad ogaataan ood ku ogaataan inay mu'minaad yihiin yani sida daahirkaa baa laga wada ilan qalbiga ilahay baa oga falaa tarjicuuhunna ila alkufaari gaalada ha ku celinina buu ilahay leey laa hunna waa xukun cusub ilaahay wuxuu ihi laa hunna dumarkii ma ah xillun kuwa xalaal u ah lahum raggii gaalada ah dumarkii mu'minaadka ahaa ee soo hijrooday raggii gaalada ahaa ay kasoo tageenee qabi jiray xalaalu ma aha kuma celin kartaan walaa hum raggii gaalada ahaana ma aha yaxilluuna kuwa xalaal u ah lahunna dumarkii muslimaadka ah samar waa xukun cusub weeye xukunkaasi waxa weeye aayaddu waxay faa'iideynaysaa marka dumarka mu'minaadka ihi ay ragga gaalada ah kasoo hijroodaan ay kasoo tagaanba gabadha muslimaddiihi taladeedii inay gacanta iyadu ku hayso 2 option bay marka leedahay ninkii gaalka ahaa ee ay ka soo carartay iyadoo muslimad ah inay chance uu ku soo muslimo ay siiso oynan horey ka guursanin oy ninkii sugto oy fursad uu ku soo muslimo siiso iyo in caqdigeedii intayba horey buu ka fasakhmayaaye go-aanka intay qaadato inay nin muslima markay ciddadu ka dhammaato nin muslima horey ka guursato labadaba ilaahay baa iyada door iyo ikhtiyaar u siiyey haddii marka ninkii gaalka ahaa ay sugto oo muddo yar kadib uu ninkii soo muslimo ilaa iyadaa kasoo hor muslimtee ma nikaax cusub iyo guur cusub baa dib la isugu celinayo dib bay isu mehersanayaan mise guurkoodii hore u shaqaynaya culimmadu way isku khilaafsan yihiin laakiin khilaafkana waxaa keenaya aathaarta axaadiista kusoo aroortay gabadhii nabiga sal ly slam ee zaynab ninkii abulcaas ahaa iyadaa kasoo hor muslimtay iyadoo muxuu ahaa muslimadoo maka mustadcafad ku ah oo maka lagu dhibo ayaa ilaahay qadarkii ninkii gabadha qabay ee nebiga muxuu ahaa uu sodoga u ahaa abulcaas baa wuxuu ku jiray raggii beder la qabtay dagaalkii beder gaalada lagu qabtay buu ku jiray nimankii gaalada ahaa markii la furanayay ee muxuu ahaa ransamka lagu furanayay
ayaa gabadhii nebigu waxay soo dirtay si ninkeeda ay u furato kuushii hooyadeed Khadiija habeenkii la aroosayay ay siisay. nebigu sal ly slam markuu arkay wuu gartay marka aad buu u naxay. saxaabadii buu ka codsaday marka hadday suuragal tahay ninkan in la iska sii daayo. nebigu iskama sii dayn, wuxuu yihi haddaad yani idinku fasaxdaan aan sii dayn. markaasaa ninkii sidii lagu sii daayay kuushiina gabadhii nabiga sal ly slam gabadh muslimada bay ahayd. laakiin shardi baa lagu xidhay oo nebigu wuxuu ku xidhay markuu maka ku noqdo gabadhii nebiga inuu soo diro oo madiine usoo diray gabadha oon maka lagu sii hayn ilaan muslimad bay ahayd oo cadaadiska gabadha laga daayo. ninkiina ballantii wuu oofiyey markuu maka tagay xaaskiisii wuxuu hi orod nebigii aabbaha ka dabatay. kama bixin ballantii nimanku si kastaba aadan ballan bay waagii hore lahaan jireen gaalada. hadda wax walba way isku dhexyaan muslimkii waa ballan hadda aadan ugu soo hagaagay samar. ninkii marka 2 years later 2 sano kadib buu yimid gabadhii oo nina guursanin. markuu yimid baa riwaayadaha qaar waxay leeyihiin guur cusub buu nebigu ugu celiyey oo dib baa la isugu guuriyey, qaarna waxay leeyihiin la isuguma guurin, laakiin waxay riwaayaduhu u badan yihiin guur cusub inuuna jir. sidaa daraaddeed gabadhi iyadoo nin guursanin hadduu ninkeedii gaalka ahaa soo muslimo waxaa bannaan guurkoodii hore inay ku wada joogaan. somal hadday cusboonaysiiyaanna dhib male si khilaafka looga baxo, haddii ay guurkoodii hore ku wada joogaanna dhib male. sidaasayna riwaayaduhu u badan yihin. ya labada hal mar isla muslimeed iyagu khalaas maxaaba taa hadalba iman mahayo, waa reer caadiya wey. guur cusub wax la dhaha ma jiro, sababtoo a nikaaxa gaaladu sharcigu wuu tixgelinaya wuu ictibaarinaya. markuu nin inagii soo baranay hadda ka hor gaaladu markay yimaadaan iyagoo naago badan wata, qaar baa soo muslimi jiray nin wata taqriiban 50 naagood ama 20 naagood wata ayaa soo muslimi jiray. markaasaa la dhihi jiray 4 ka doon. 4taas meher looma samayn jiro, mana dhici jirin nin reer family soo muslimay in nebigu uu guur u sameeyey ma dhici jirin. marka nikaaxa gaaladii guurkoodu waa saxiix wey, ilmahooduna ilmo zina ma aha, reer isqaba iyo ilmo xalaal ku dhashay baa loo ictiqaadinaya. marka ilahay wuxuu leey tabaaraka watacaala aayaddu marka waxay ina baraysaa xukunka aan ka faaidaysanayna waxa weeye gabadha muslimadii gabadhu markay soo muslimta ninkeedu hadduu gaal sii ahaado taladeedu in iyadu gacanta ku hayso, ama hayaraha sugto oo jansaasiisa uu kusoo muslimo, ama ciddadu intay tirsato markay ka dhammaato nin muslima ha guursato khalaas. ka waran iyadoo nin guursatay hadduu waadanba soo muslimo too late ya ninkaasi waa way asayfa dayacti laba wey way ka dhacday waxba isku dhawaatay taas. ilaahay wuxuu leeyahay marka laa hunna maxay kala yihiin marka labada jumle ee laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna, labadaa jumle maxay kala yihiin? ma ta'kiid hadal is adkaynayaba mise laba macnay kala faa'iideynayaan? mise laba macnay kala faa'iideynayaan? alxaafid ibnu kathiir وغيره من بعض المفسرين waxay leeyihiin laba macnay kala faa'iideyno. hadalka hore ee ah laa hunna xillun lahum waxay ka hadlaysaa waqtiga la joogo iyo wixii tegay in the past, waqtiga hadda la joogo. yacni hadda dumarka muslimaadka iyo niman gaala ah xalaal uma aha. walaa hum yaxilluuna lahunnana macno dheeraaday wadataayo mustaqbalka iyo futurkana xalaal isuma noqon doonaan. not only right now but in the future xataa xalaal isuma noqon doonaan. samad marka macnuhu waxa weeye laa hunna dumarkii muslimaadka ah ma aha xillun kuwa xalaal oo u bannaan xagga guurka lahum nimankii gaalada ah. waadix waqtigan la joogo uma bannaana. walaa hum raggii gaalada ahaa maynan ahaanin yaxilluuna kuwa u bannaan lahunna dumarkii muslimaadka ahaa mustaqbalka isu bannaanaan mahayaan. sidaasaana fiicanoo hadalku ta'siis iyo macno cusub inuu faa'iideeyo baa ka fiican in la yidhahdo wuu is adkaynaya, oo macnihii hore baa isxoojinaya. waxaa ka fiican in la yidhahdo macno cusub buu faa'iideynaya. jay taas waxaa laga soo reebayaa muxuu ahaa marka la leeyahay taas horta waxba laga soo reebi maayo. oo marka la leeyahay nin muslima iyo qof nin gaala iyo gabadh muslimada sina isuguma bannaana. ninkaasi ha ahaado gaalada kale ama ha ahaado kiristaanka iyo yahuud iyo kuwan ahlu kitaabka la yidhahda ha noqdo. nin gaala iyo gabadh muslimada marnaba isuma bannaana. haddii wax iyagu ay guur ku sheegeen ay gabadhii muslimadda ahayd iska raacda ninkii gaalka ah, xaaraan iyo zine ayay ku wada joogaane wax meheroo asixi haba yaraatee ma jiro. samad laakiin ragga muslimaadka ah haweenka gaalada iyo uma wada bannaanee qayb yar baa loo baneeyey oo ah haweenka ahlu kitaabka ah. haweenka ahlu kitaabka oo muxuu aha ilaahay shuruud ku xidhay haweenkaasaa iyagana u bannaan. haweenkaasaa u bannaan ragga muslimaadka.
maxay tahay sababta loogu diiday loogu fasaxay ragga muslimaadka ah haweenka ahlu kitaabka laakiin nimanka gaalada ee ahlu kitaabka haweenka muslimaadka aan loogu fasaxin sababtu maxay tahay ma qiyaas kartaan iyadan what do you think guys yeah nimanka gaalada ee ahlu kitaabka haweenka muslimaadka ma guursan karaan laakiin nimanka muslimiinta iyo haweenka ahlu kitaabka kiristaanka yahuudiya way guursan karaan maxay tahay baad umanaysaan sababtu midi waxa weeye markaynu bini aadanka dhaqankiisa ku noqono gaal iyo islaamba bini aadanka in generally kama hadlayno afar yani waxoogaa fidradoodii iyo caqligoodii upside down oo si khaldan u shaqaynaya powerka iyo qawaamada iyo talada iyo leadershipka ragga iyo dumarka yaale markay isla nool yihiin غالبا waxaa la ragga sooma غالبا raggaa iskale ya yani waxaan hadda kama hadlayno dee aygii iyo wax walba la isku qasay xuquuqdii meelo ayna lahayn la mariyey aygii xataa uu guryaha leeyahay laleeyahay aygu mushaharka leeyahay guryaha leeyahay guryaha dhaxlayo waa adduunya rogmatay wey taa kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa bini aadanka caadiga waxa weye ragga ayaa leadership kale muxuu ahaa leadershipna qof gaala iyo qof muslima oo isla nool inuu gaalku leadershipka yeesho lama ogolo alislaamu yaclu walaa yuclaa caleyh ilahi tabaaraka watacala wuxuu leeyahay walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila inuu gaal leadership yeesho lama ogolo midda labaad muxuu ahaa maadaama qawaamadu mar walba iyo responsibility iyo leadershipka ninku uu leeyahay expectation badan iyo rajo badan baa laga qabaa inuu ninku uu influence gareeyo qofkii dumarka ahaa oo diintiisii qaadato soo muslimto laakiin waxaa aada iyo aada u adag oo aada iyo aada u yar gabadhii intay iyadu influence garayso ninkii inuu soo muslimo ayaa aada u yar sidaa daraaddeed ma guursan karo gabdhuhu marka waxaasoo kale inay u arkaan waaba inay ku faanaanba in ilaahay uba u diiday nin gaali inuu guursado inuu ilaahay u diiday waaba inay proud they have to be proud with that inay ku faanaan wey inay dhahaan waay nimankiina loogu fasaxay annagana loogu fasaxi waayo haddii meel walba waay la geliyo 100 fadli iyo 100 dheeraad iyo 100 wax oo khayr ah oo dumarka la siiyo ragga la siinin baa jira sama haddaan hadda dhahno muxuu ahaa markii la isguursanayo waay haweenka meher loo siinayo ragga ma wax la siiyo ilaa waa common interest sama maxaa ragga xoolo loo siinayaa dumarka loo siinaya ragga ma la siiyo hadday raggu mucaaradaan ka war itis khalad ma mucaaradi kara waayo waa xukunkii ilaah waxaa la rabaa marka axkaamta ilaahay in lagu wada qanco ragguna ku qancaan dumarkuna ku qancaan ilaahay wuxuu leeyahay laa hunna dumarkii ma ahaanin xillun kuwa u banaan lahum nimankii waqtigan xaadirka ah walaa hum raggii gaaladaha ma ahaanin mustaqbalka dambe yaxilluuna kuwa u banaan lahunna dumarka ilaahay wuxuu uhi wa aatuuhum maa anfaquu waa xukun cusub haddana oo aayaddu ka hadlayso xukunka cusubi waxa weeye waxaa dhici karta gabadhii muslimadda ahayd ee soo carartay ee soo hijrootay ninku inuu kharash gareeyo kharash badan uu ku bixiyey dahab inuu siiyey dhaqaale siiyey xoolo badan ku bixiyey alaab badan u gaday hanti siiyey wixii ninkii ay ka burbureen ama ay la soo tagtay ninkii marka ay isugu darsantay muxuu ahaa guri la-aan iyo guur la-aan nimanka gaalada ahee ballanka iyo heshiiska lagu wada jiro haddii arrin noocaas oo kale ay dhacdo gabadh muslimada oo ay qabeen xoolo iyagu ay leeyihiin oo badan ay kaga baxeen ay ka soo tagto ilahay wuxuu lehy tabaaraka wa tacala nimanka aad heshiiska tihiin inay gaalo yihiin keliya ha u dulmiina ninkaa kharashka gabadha ka galay dowladda islaamka ha u celiso gaal kasta ogeey bal cadaaladda u fiirsada yaa laga helaya cadaaladdaas ninkii gaalka ahaa ee gabadhii muslimadda ahayd ay ka soo carartay wixii kharash ahaa ee hanti ahaa ee ku lahaa ee uu ku sheeganaya ha loo celiya baa layidhi haddii markaa uunan heshiis iyo ballan uu jiro wey hadduuna dee ballan jirin oo ay meeshu xiiro tahay oo la islaynhayo oo xarbi uu yahay oon ballanna jirin heshiis iyo ceasefirena una jirin dee marka waxba la isu celin maayo laakiin waxa weeye haddii ballan iyo heshiis uu meesha yahay oo xabad joojin ay jirto ilaahay wuxuu leeyahay wa aatuuhum siiya nimankii gaalada ahaa maa anfaquu wixii ay bixiyeen gabdhihii ka soo hijrooday ay ku bixiyeen ay siiyeen ee kharash iyo dhaqaale ahaa dib ugu celiyay samaare kadib marka ilaahay wuxuu leeyahay waa xukun cusub haddana walaa junaaxa calaykum dembi idinma saar dembi dushiinna ma aha cidhiidhi iyo culays dushiinna ma aha an tankixuuhunna gabdhihii soo hijrooday inaad guursataan dembi idinkuma ah waa goorma u fiirso idaa aataytumuuhunna gabdhihii soo hijrooday haddaad siisaan ujuurahunna meherkooda haddaad siisaan
meherkooda haddaad siisaan gabadhii soo hijrootay waa inagii lahayn ama ninkeedii bay sugi hadday rabto ama hadday rabto intay ciddo tirsatay nin muslim iska guursa sooma ilaahay wuxuu leeyahay marka ninka muslimkaa gabadho hadday go-aansato inay nin muslima guursato meherkeedii iyo siiya buu ilahay leeyahy ha odhanina na adaa nin gaala ka soo cararo kharash baaban kaa bixinay oo gaaladii baan kharash u celinay oo annagaad khasaarana gelisee firiha lagugu guursada ha odhanina somaali oo gabadhii yani ha ka dhigina ha undermine garaynina oo ha dhihina na $5,000 baa lagugu lahaa 5tii baanu bixin haddana waxaad leedahay meeraha laysiiya no ha dhihina sidaas stiil gabadhani value bay leedahay qiimay leedahay ixtiraama meherkeedii xaqeedii haduudsiinina siiya saasuu ilahi leeyahy caza wajal bal fiirsa haweenka gaaladu hadday qur-aanka aada u akrin lahaayeen waxaan malay hal mar bay soo wada carari lahayn kuwooda runtii akriya taariikhda islaamka iyo aad bay u yaabaan way la yaabaan xaqiiqatan way la yaabaan markaad uga sheekaysa interest way la yaabaan qaabka islaamka uu haweenka u respecti garayo ilaahay wuxuu leeyahay walaa junaaxa dembi ma ahanin calaykum dushiina nimankii muslimiinta baa lala hadlaya waa xukun cusub an tankixuuhunna dembi idinma saara haddaad gabdhihii soo hijrooday guursataan waa goorma idaa aataytumuuhunna haddaad siisaan ujuurahunna meherkooda waa sadaaqa iyo meherkii wey oo aydaan maxaa loo dumarka ujuur waa la siiya meher waa la wada siiya waay tan si gooniya ujuurahunna loo leeyay inaanadan dhihin gaalay ka timid oo annagaaba kharash ka bixinay hadda waxba meher qumana siin mayno inaan sidaa la dhihin oon la undermine garayn ilaahay wuxuu leeyahay caza wajal walaa tumsikuu ha haysanina waa xukun cusub weeye xukunka cusub waxa weeye gabdhihii muslimaadka ahaa ee gaalada ka soo hijrooday waan ka hadalnay xaaladahooda kala duwan laakiin laba arrimood baa meesha imanaysa ninkii hadduu muslimo oo naagtii ay gaal sii ahaato waadix ay naagtii gaal sii ahaato ama iyadoo muslimad ahayd bayba gaalo u gashayba walciyaadu billah oo iyadii baa gaalowdayba hadduu ninkii muslimo naagtiina ay gaal tahay ama dib ha ka gaalowda ama gaalnimadiiba ha ku hadho weligeed gaal ha ahaatee hadduu isagii muslimo iyadiina gaal tahay meherkoodii weli ma sii jiraya iyagana maya meherkoodii isdhaan meherkoodii ma shaqaynayo ilaahay wuxuu leeyahay walaa tumsiku masaladu marka taasay ka hadlaysaa ninkii hadduu muslimo inuuna gaal sii haysan karin bay aayaddu ka hadlaysa haddayna ahlu kitaab ahayn ilaahay wuxuu leeyahy walaa tumsikuu ha haysanina do not keep wey ha kiib garaynin oo ha haysanina bicisami lkawaafiri naagaha gaalada ah nikaaxooda iyo guurkooda ha sii haysanina markaad idinku muslintaan naagaha gaalada ah ee idinka hadha ee gaalnimadii kusii adkaysta ee kusii hadha xadhigoodii iyo meherkoodii ha sii haysanina iyo guurkoodii markay aayaddaasi soo degtay cumar ibn khadaab 2 naagood oo gaalo ahaa oo maka ka jirtay oo uu qabay oo uu sugayey inay usoo hagaagaan markay aayaddani tidhi ilaahay yidhi ha haysanina naagaha gaalada meherkoodii iyo nikaaxoodii ha haysanina labadiiba bartii buu ku furay cumar radia allahu canhu hadde ma warbayaan right away markay aayaddu soo degto saxaabadu implementation bay ku samayn jireen waa la tadbiiqin jiray aayadda mana ahayn cumar kelige bacdu saxaaba oo kalena sidaas oo kale yeela waxaa la diidayaa marka ninkii hadduu muslimo naagtiina ay gaalnimo ku hadho meherkoodii ma sii jirayo mana sii haysan karo waa qodob hadday gaalowdana oo iyagoo muslimiin aha iyadii ay gaalowdana ma sii haysan karo wax guuroo sii jirayaa ma jiro soomali ilahi wuxuu leeyay tabaaraka wa tacaala walaa tumsikuu bicisami lkafr cisamku waxa weeye waa nikaaxi yani waa ilaashimaheedi iyo dhowrsoonaanteedi ila markay naagtu nin leedahay way dhowrsoontahay hal meel bay ku eg tahay kinaayaduna hadda waxa laga kinaayoonaya laga wadana waa guurkii iyo caqdigii isku haya wey taasaa laleeyahay hasii haysanina no more ma sii shaqeynayo valid ma ah it is done u dhamaado hay hadday ahlu kitaab tahay dee guurkeedaaba la ogolaaba dhib male taas hadday ahlu kitaab tahay guurkeedaaba la ogolaa iyada wuxuu ilahi leeyahy tabaaraka wa tacaala walaa tumsikuu ha haysanina bicisami lkawaafiri naagaha gaalada ah nikaaxooda iyo guurkooda ha sii haysanina haddaad idinkii muslimtaan okay was'aluu maa anfaqtum waliyas'aluu maa anfaquu somaynaan dhihin masale cusub weeye oo qayb aan soo maray haddii haweenkii muslimaadka ahaa ay gaalada ka soo cararaan gaalada maxaa loo celin baynu nidhi ya kharash hadduu ka galay oo hanti iyo kharash ay gabdhaha ku sheeganayeen waa loo celinaya somaynaan dhihin gaaladuna gaalo nabad iyo heshiis iyo xabad joojini waxay noo dhexeeyaan ay yihiin waa loo celinaya
waa qodob inaga tii inaga cararto haddayba dhacdaba inkastoo ina badnaynba hadday mid fallaagihii muslimkii ka cararto oo ninkii muslimkaana uu kharash ka galo iyaga laftoodii war nimanka wax noo soo celiya ma la odhanayo nimankii gaalada qudhada inaga way nagu dhici kartaa ma la odhanayo war anagana anagu waa idiin celinay waxba anagana naga galo oo hanti baan ku sheegananay nimay noo soo celiya ma odhanayna ma codsan karaa ama aan ka hela ama aan ka weyne ya ha waan ka codsanayna sababto iyaguna way naga codsanayaan aayaddanaa ka hadlaysa marka ilahay wuxuu yihi was'aluu weydiista idinkuna ragga muslimiinta haddaad tihiin maa anfaqtum xoolihii aad ku bixiseen aad ku wixii aad nafaqayseen ee xoolo ahaa ee haweenka gaaladaa idinka galay idinkuna weydiista markaad muslimteen naagtii gaalnimada ku hadhay kharashkii aad ku bixisay ee kaa qabtay iyo meherkii iyo wixii aad siisay gaalada weydiisa baa lagu leeyay was'aluu iyaguna ha idin weydiisteen maa anfaqu wixii ay bixiyeen gabadha muslimadda ay siiyeen ee idiin timid taa waan soo mar ilaahay wuxuu leeyahay dalikum kiinaas oo ah idinkuna wixii kharashee gabadha idinkaga baxa hadday idinka cararto inaad nimankii gaaladaha weydiisataan iyaguna idin weydiistaan naag gaalana cusmadeeda iyo guurkeeda aydan sii haysan karin hadday gaalnimada ku hadho gabadha markay soo hijrooto haddaad guursanaysaanna meherkeeda aad siisaan wixii o dhan bay ku dhacaysaa naag muslimada iyo nin gaalihina aynan isu banaanayn xukmullaahi xukunka ilaahay wey ilaahay baa sidaa wuxuu xukumay yaxkumu ilaahay wuu idinkala xukumayaa baynakum dhexdiina wallahu ilaahayna caliimun waa mid cilmi badan xakiimun oo shay walba meesha ku habboon dhiga cilmigiisa iyo ilaahay afcaashiisuna waxay ku salaysan yihiin xikmad iyo wisdom ayay ku salaysan yihiin that's why allah caza wajalla shay walba wuxuu dhigayaa meesha ku habboon mid buu ilaahay faqiir ka dhigayaa very poor waa lixikmatin yaclamuha allah mid buu ilaahay rich iyo qani ka dhigaya lixikmatin yaclamuha allah mid baa xanuunsanaya lixikmatin yaclamuha allah mid baa caafimaad badan la siinaya lixikmatin yaclamuha allah afcaasha ilaahay oo dhan iyo tadbiirka iyo maamulka ilaahay oo dhan waxay ku salaysan yihiin xikmad wallahu caliimun xakiim wain faatakum shayu min azwaajikum ila lkufaari facaaqabtum faaatuu aladiina dahabat azwaajuhum midla maa anfaquu wattaquu llaha aladii antum bihi muuminuun aayaddan waxay ka hadlaysaa masale cusub waxaynu soo marray haddii ninkii muslimka ahaa ay naagtiisii gaalada ku hadho ama ayba gaaloodo gaaladii aado ninkii muslimkaana uu kharash ka galay muxuu samaynayaa baynu nidhi ya weydiisanaya warsiiyule was'aluu maa anfaqtum buu ilahay haddee gaal ballan male hadday yidhahdaan war waxba idin siin mayna raalli ahaada ninkiina uu caydh yahay oo kharashkii o dhan gabadhii ka galeen maxaa la samaynaya mataqaana waxa la yidhahda xoologoyn dhaqanka soomaalida waxaa jirta waxa la yihahda xoologoyn baa jirta xoologoyn yaa garanaya who knows xoologoyn ya waa kind of ya ha markuu guursada baa la yidhahdaa xoolaha la siiyo waa la dhaqaaleeyaa soomaalida oo xoolaha la isugu daraa ama isagoon guursanin hadday xooluhu dhaafaan oo hal mar xoolihii ka baaba'aan dadka iyo qaraabada iyo tolka iyo asxaabta xoola isugu dara xoologoyn baa la yidhahda marka ninkii muslimka ahaa haddii gabadhii xoolihii kaga dhammaadeen oo kharash ka galay iyadiina ay gaaladii u tagtay ninkii dee xoolo ma hayo waa in la dhaqaaleeyo o la yidhahdo iyagiina ay diidaan o dhahaan gambe celin mayno ninkii iska joogi maayo balse maxadda islaamka u fiirso marka haniimo la hele muslimku hanti iyo dhaqaale ay helaan ay haniimo helaan ba intaan la qaybinin baa laleeyahay war wax niman muslimiin oo haweenkii ka carareen ma jiraan oo muxuua gaaladiina ay diideen inay dib xoolihii ugu soo celiyaan ha haddii la yidhaahdo 1 2 3 4 waa la tirakoobayaa nimankaas waa in la dhaqaaleeyo oo la yidhahdo waa ka wixii idinka maqnaya gaaladu idiin diideen haye guursada lama rabo mujtamaca muslimku inuu noqdo laba dabaqadood oo kooxna ay tahay capitalist oo kharash iyo dhaqaale la dhiman hayso kooxna muxuu ahaa tii habeenkii dhowta aan sheeginay 1%kii dhaqaalaha waddanka o dhan gacanta ku haysay oo dhan kale lama ogolo waa inay ummaddu iska agdhawaato inay iska agdhawaato ilahay wuxuu leeyahay marka waa in faatakum hadduu idinka tago kaalada iyo xoologoyntu way yaraha kala duwan yihiinoo waa su-aal aada u fiican af soomaaliga intaan ka garanayo kaaladu waxa weeye qofku markuu guursaday iyobay aada u badan tahay xoologoyntuna waxaa aada loogu isticmaala markuu caydhoobay xooluhu ka dhamaadaan differencega yar baa udhexeya lakin I think in midba sida kale loo isticmaalo shawdiiso sheekhi say kala noqonaya kaala iyo xoologoynta ha saas taasaa kaala waa sax wey exactly waa sidaas ninku markuu guursado baa kaala la yidhaahdaa laakiin xoologoyntu way ka guda weyn tahay oo isagoo caydhoobay oon guursanin oo xoolihii dhaafeen ama duruufaysan wixii la isugu dardaro dhan waa xoologoyn wey way kasii ballaadhanta
Soomaaliga waxaan moodayay inta inuu gaarsiin laakiin ma sahlan jay ilaahay wuxuu leeyahay wa in faatakum hadduu idinka tago u fiirso hadduu idinka tago muslimiintii baa lala hadlaya shay-un wax hadduu idinka tago oo min aswaajikum xaasaskiinni ah oy gaalada aadaan ilal kufaari gaalada hadday gaalada u tagaan ilaahay wuxuu yihi facaaqabtum ood gaaladii ciqaabtaan gaaladii aada ciqaabtaanoo ama facaaqabtum aada la cidhbisaanoo aada haniimi iyo xoole iyo hanti ka heshaan ama facaaqabtum aada ciqaabtaan oo punishment intaad ku samaysaan haniimo aad ka furataan iyo xoole way isku macno dhow yihin ood xoole ka heshaan rag muslimiina oo dumarkoodii gaalada aadeenna ay jireen oo kharash iyo dhaqaale ka galay gaaladiina aada xoole ka soo furataan dagaalkii oo haniimo aad ka heshaan intaydaan xoolaha qaybinin fa aatuu siiya aladiina nimankii dahabad ay tageen aswaajuhum xaasaskoodu midla maa anfaquu kharashkii ay bixiyeen ee gabdhaha ka cararay ay ku bixiyeen in la agsiiyey somaali wax alla wixii ka galay naagtii ninka ka carartay ee gaalada aaday ninkii muslimkaa kharashkii ka maqnaa haddaynan gaaladii u soo celinin wax alla wixii ninkaa ka galay u celiya buu ilahay lehi somaali wattaqu llaha allana ka baqa alladii allahaasoo antum idinku bihi isaga mu'minuun aada rumaysantihin waxaa loo leeyahay wattaqu llaha alladii antum bihi mu'minuun iimaankaasa wuxuu kalifayaa dadka qofka muslimkii uu leeyahay gaalka si kasta oo uu gaal u yahay inaadan ka exan inaadan dhihin waa gaal oo xaqiisi aadan duudsiinin iimaankaa kuga xambaaray ilaahay caza wajalla waa ku lahaa aayaddii habeenka dhowta aan sheegaynaen lahayn Harvard University baa meel ku qoratay meel dhowta Facebook waad ka akhriyayseen baan umalinaya qaybta looga miya آية إلهي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين سبحان الله وفي غاية العدالة عدالة داس يعني ملد ملوها اليوم جرت بيج يعني فير نقو أو عدالة نقو حتى كيس كود حياة أباها يوالدك يدك له هاو كلا يحن سمعت كيس كود حياة نفط هذا يبني آذن كله فير نقو هاو كلا يحن نفط هذا قف كلا هاو جاي يحن حتى قفك كلا هدوية هي عدو نفط هذا هو يحن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى سمعت مد الله بعض ملاحظات كالآية دي كوجرت وحي إليهم بعض المفسرين مركي لعبيري إلهي وهوانكي مسلم كتجي قال هذا آذي وشيء وكهذي وحي كعبير الشيء شيء أنت بدل وحى لو أذيك سدا وح ما لا يعقل وان عقل لهين وفائدة لهين سببته ولا أندر ما نقرينا يايو قفك أنتم مسلم كتجي قال لما دورتي شيء بقى لقى عبيره بعض حتى لقى ما عبيره وتحقيرا لأمرها ولا الليذي سببتها وحي دورتي بان وح قيمة لأهين أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إيمانك يا إسلام لماذا بقى وحي كدورتي وح عن قيمة لأهين إيدي بقى وح لقى عبير الشيء بقى للشيء يعني شيء عن فاليو لأهين وح عن قيمة بدن لأهين وح أكل ويا في صومالي سمعت إلهي وحليه وإن فاتكم هدو إذن كتاك شيء وح ومن أزواجكم هوانك أدقبتين هذا إذن كتاك إلى الكفار قال ذا أي آذان oo facaaqabtum gaalada aad ciqaabtaan oo hanti iyo xoolo intaad ciqaabtaan oo punishment aad ku samaysaan oo ka guulaysataan aad xoolo ka heshaan ilaahay wuxuu yiri fa'aatu siiya alladina kuwi nimankii muslimiinta ahaa dhahabad ay tageen azwaajuhum xaasaskoodu waxaad siisaan mithla ma anfaqu wixii ay bixiyeen haweenkii ka cararay ay ku bixiyeen wax la agsiiyay waa goorma nimanka muslimiinta mar walba ma la siinaya wixii muxuu ahaa ka baxay mar walba miyaa la siin فإنه صامر مرة ربما الدولة ده وعلى الناس ما يقول ما نلوع على الناس يا حتى يبقى قال دي أول شيء وحور ربي حواليه كم غنا قال دي وسوع عليه هذا إنه لما صينين because هو هلو يحس نندي بن ما سمعت بني آدم يجوا بحكم يقضيال يالرئيس النظام بيرهاي أكو كلا سعودان وكلا حاجة بني آدم كل أسبوعي وكو كلا دنبي قال يا سلام si uu ku wada dhaqmo ku wada socdulay ilaahay saasule wattaqullaha alla ka baqa alladii allahaas antum idinku bihi allahaas mu'minuun aad rumaysantihiin yaa ayuha alnabiyu idaa jaa'aka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billahi shay'a walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahun ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي
نبيو إذا جاءك مركي كوي مادان المؤمنات هوانك مؤمنات هذي كوي مادان يبايعنك يجو بيعك ولا جري بيع يجو كل جري بيع ذو ترديوي أما أوث ترديو أما مركي وضعت أوث لا رأي لصعد يبايعنك يجو بلن أذق يبيعك ولا جري يبايعنك يجو كولا بلمية على ألا يشركنا إننا أشريكين أو أين لو ذاجن بالله إلهي شيئا وحبا إننا إلهي لو ذاجن إننا لو ذاجن دقحان أوليو رسول جيدو دير مخلوق بجميع أنواعه إننا لو ذاجن أو يبيعك وقولا قلان ولا يسرقنا إننا وحبا حدا هذا يبيعك وقولا قلان يبلن قبلهم مؤمنات كاه ولا يزنين إننا زنيسننا أي بلن يتردي كوغلا قلان ولا يقتلن إننا دلن أي بيعي بلن كوغلا قلان أولادهن عرور تاض ولا يأتين إننا لئمن أي بلن كوغلا قلان ببهتان بين أبور يفترينه أي أبورتين بهتان كاس بين أيديهن قعمه هذا هرتاض أي كو أبورتين يو أرجلهن لغهاض ولا يعصينك إننا كوغو عاصين هذي بلان كوغلا قلان في معروف وحوانا أكثر أو خيرا إننا كوغو ديدنا أي بلان كوغلا قلان intaas oo bointi oo qodobo ah haddii dumar muslimaad intay ku yimaadaan ay ballanku ugu qaadaan oo bay'ad kugula galaan fabaayi'hunna laba yani ballanka la galbu ilaahay leeyahay tabaaraka wa ta'ala bay'ada la gal oo mubaayico wastaghfir lahunna wastaghfir dambi dhaaf u weydii lahunna gabdhahaas allah ilaahay dambi dhaaf u weydii wixii ay soo mareen iyo wixii hore inuu ilaahay ka dhaaf inna allaha ilaahina ghafuurun wa mid dambi dhaaf badan rahiimun oo naxariis badan أسماء إلهي أردن يعني أكثر كذا أما كل جاد بعموما وحيلاذا وأمثلة المبالغة غفور فعول رحيم فعيل كيدا بدافك بدنا إن حريصة بدناوي أيضا وحيت الماما يسا بيعة النساء أيضا كهذا شو يقابك النبي صلى الله عليه وسلم وضمرك بيعة دي بلنت وقول لك ليش سيدا النبي عليه الصلاة والسلام ورجع بلن أرج إسلام لماذا يا إيمانك يا خيرك ورجع النبي وقول بلن يجري بعضهم كنا بيعة يبلن لا لجل جري وحيكون كلا دوانا رجع ده جهاد بل ولا بلن يجري وكمدها وحيابيه بلن كيكون جل جري المرر بلن لكن تمر كده يجي واجبكم معه إنك استوي ده رجع عاونا يعني مثلا الله بعد مركون النبي يقول رجع بيعة يبلن كلا جل يوقع عن قاضي جري صلوات الله والسلام عليه لكن دمر كالنبي يقول ما عن قاضي جري سيدا درادد من أجنبي قبل أجنبي هذا إن إزق عن قاضان ويقع عن تيسكو سلاماني حرام لما أقرأ لما أقول أحاديثنا ويكديسا قرآن كنا وضر كيسا situation كنا عاصو كلا النبي يقول دمر كي بيعنا لقى لي إسلام لماذا يا خير كلا يقول بلما يجي والنبي يقول عن قادرها أهل لو يقول لي هاي وبنان هديت وإسكمد هدي محوها أهل يعني تحيل كيه الحياة هذا يستي سوماليدو لغن كود أي سمايان وإنتي مرجع أنت أيسا دمر كوجو دوبان إني رجع كل سلامان يهدين وكل دوبان ما يلاهي ولا سريع يا هذا أنتوا في عنتها محاجة عنتها لو ضوية حبا كوشير there is something wrong سمع حبا خلدان هذا يستحتها محاجة عنتها لو ضوية إذن كو قبلها يري ما ينعرف ده ما مو يمكن سماري ضوي سمايا أنت عنتها شالمدة يري قربسارتها وضتي سيدا أو جمر مرته بي منك عنتك سلاميس ولي بوا تفيعني أهل الدين كحشان يستحس يا تكلات أو إسك سلاميس هذا يربط مدة عنتها حكومة مرنة سوا مدة في يعني يرى علماء ذاوي في ووايه هذا ما هذا اللي دخلت بوجرة خلت هذا بوجرة لكن محا الحمد لله واحد بدن ولا جوانتهم مركب مهمة وحوي رجية دمر عموما أما شرعا أجنبي كلا اسمه سلامي كلام النبي صلى الله عليه وسلم قعنتي سوقف دمر وأجنبي هذا قعنت هذا متهابن اسمين تهابن مركب وحيابها سو النبي دمر كبيعة يبلانت كولا قال محاكم إذا كو تحقيق توحيد إسلام لماذا دينه حاجاتيا الشرك يقال لمن لا يسكيل عليه وغضب إن لا يسكيل عليه سرقة توجنمه هذا واحد سوى جريه إن محوها توجنمه ذي بريء كهذا عديد يدا وبكوبه كانوا قريس إلهي هو سارق وسارقة وحكله سوى جريسة هدي حوارها النين كذا سم معروفه وناكسن أين نروق هذا نين أي كجعيرت نين كحوله هذه أو يكون كيسي كلا جالس
oo wax alla wixii akoon ku dhaca ay hoosta ka qaadanayso hadda dee waagii hore islama socon karin hadda dhaqdhaqaaqa akoonka oo dhan halkaasa online-ka lagala soconaya ama jeebkiisii ay wax walba kala baxdo aayaddaas dumarku islaantu ninkeeda oon ogeyn baahideeda way ka qaadan kartaa isagoon ogeyn sharciga islaamka wixii baahideeda way ka qaadan kartaa laakiin waxaa la diidayaa inay ku kala xtagto oo ina ka dhigto wixii o dhan markuu nabigu aayaddan akrinaya calayhi salaatu wasalaam xaaska abi sufyaan hinda bintu cutba walaa yasriqna markuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam baa waxay tihi rasuulka ilaahayo ninka abi sufyaan ee qaba waxay tihi waa nin bakayl ah aniga carruurta kharash nagu filan nama siiyo ma dembi baa iga soo gaadhaya isagoon ogeyn haddaan xoolihiisa wax ka qaato isagoon ogeyn samaad markaasaa nabigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam khudii muxuu aha min maalihi maa yakfiiki wa baniik xoolihiisa ka qaada adiga iyo carruurta waxa idinku filan markaasaa nabigu wuxuu raaciyay bilmacruufi si wanaagsan bilmacruufidaas ma sahlana bilmacruufidaas macno weyn bay wata bilmacruuf waxa weye nag ha ka dhiginoo ha kala gaabin wey yani oo mogta marka qaarkood waxaa dhici karta ninka gabadhu iyadoon baahi ninka xoolihiisa aynan u geynin oon biil iyo kharashaad u baahnayn inay siyaabo kale ay nag uga dhigto soo ma dhici karto waxbaa la keligeed garaynaya waxaa laga yaaba in la yidhaahdo muxuu ahaa yuuna kula guursanin ninkan lababa yuna isku toosin intii marka mustaqbalka inta wax isku toosin uu guursan lahaa reerku biilkaaba yuuna dhaafin intaa una ku ekaado soo ma dhici karto qaar baa kulligood ma wada not all laakiin waa qaar some dumarka qaar baa sameeya that's why marka ay bahashu isku yaraa toostaba waxay dhihi kuraastan hala bedelo kuraasta lix bilood 3 bilood bay matiin leeyahay halkaas ma wax badan baa jira kuraastan way khariban tahay ana waa bad quality kan ma quality fiicna waa sida kuwa ka fiican baa soo baxay waa yani waxyaabaan loo joogin oo sax ahayn waa la bedelaya haddana in yar waxbaa la create gareey marka baba dhamaanaysa taasoo kale xaraam laakiin baahida ay gabadhu qabto hadduu ninku bakhayl yahay isagoon ogeyn way ka qaadan kartaa biilkeeda wax ku filan oo wanaagsan laakiin waa inuuna wax khasaare iyo mushkilo keenaya ahayn oo looga jeedo waxyaabo kale oo ujeedooyin kale laga leeyahay waa inaan ujeedooyin kale laga lahayn markuu nabigu akhriyay calayhi salaatu wasalaam walaa yazniin gabdhaha aayadda uu ku dul akrinayay bay ya intay kala baxda waalidkeed mau dirsan kartaa taa waalidka ha laga heshiiyo shadows waxay yidhahdeen dumarku haddii ay kala baxdo waalidkeed mau dirsan kartaa ya ya taa la iska ilaaliyo wixii waalid ah laga wada xaajoodo hay taa biilka un baa laga hadlaya hay nacam ya hadduu ogaado inay wax ka xadda hadduu ogaadaa hadduu ninkii ogaado de hadduu ogaado if she is smart hala heshiiso oo dee ha qanciso you have to persuade waa inaad qanciso oo muxuu ahaa si psychology aad ula hadasho ood si fiican wax uga dhaadhiciso ood wax walba everything iyo happy laga dhigo marka way tii caqliga leh smartkii waxbay kala daberi kartaa wax walba okay bay ka dhigi kartaa tii kalena way ka fashilmaysaa marka waa inay si fiican ku wada hawsha actually tuuganimana maaha ninkii hadduu reerka biilka ku cidhiidhiyo tuuga maaha gabadhaas oo gabadhaas waa tuug lama odhanayo hadduu biilka ku cidhiyo ilaa nin bakhaylo waxaa jira reerkii oo rafaadsan ay akoonkana lacag uga buuxdo sax maaha taas bakhaylnimadaasi sax maaha ninku waa inuu nin gacan furan oo hagaagsan yahay oo gabadhaba haddaad gaadhsiiso inay jeebkaaga wax kala baxdo dee adiga laftaadii baaba mushkilo kala soo ma waayo xaaskaaga ay u gaadhaysaa heer intay gaajooto ay dhibtooto ay wax la baxayso heerka maxay u gaadhaysaa inay heerka arrintu gaadhaba maaha kaasoo kale waa lugooyo wey markuu nabigu akrinayo walaa yazniina gabdhaha ballan hadday kaaga qaadaan inaynan zinaysanin bayhinda waxay tihi rasuulka ilaahay ma naag xor aa zinaysanaysa bal dhaqankii dadkaa u fiirsa ma gabadh xor ah ayaaba zinaysanaysa bay tihi oo sharaf leh ma zinaas ay ka suuro gelaysa walaa yaqtulna awlaadahunna markuu nabigu aayaddaa akriyey waa hadday kugula ballamaan inaynan carruurtooda laynin carruurtaa laynta waxaa soo gelaysa horta haddii ilmihii oo nool ay disho waa sem haddii ilmihii oo caloosha ku jira ay disho ay kiniini iyo balaayo cuntana oo iska soo xaaqadan iyadana waa lamid lama ogolo iyadan
haddaynan gabadhii sakaraadin oo dhakhtarku uunan xaqiijinin haddaan ilmaha laga soo xaqin inayba gabadhu nolosheedu halis ku jirto duruufaha caafimaad wixii ka baxsan lama ogolo aayaddaasi soo gelisa walaa yaqtulna awlaadahun markuu aayadda nabigu akhriyay baa hinda waxay tidhi iyagoo yaryar baanu soo korinay carruurtayadii markay waaweyneedaan idinkaa dila bay tiri ila mar dhoway soo muslimtay iyadu markay saa leedahay oo wiilay dhashay baa beder lagu dilo markay yaryaraayeenna waan korinay markay waaweyneedeen idinkaa dila bay tiri qof cajiiba be wuxuu nabigu sal slam walaa ya'tiina inaynan la imanin bibuhtaanin been abuur yaftariinahu ay ka abuurteen bayna aydiihinna gacmahooda hortooda iyo waarjulihinna lagu wada maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa oo koob soo gelaya ilma uuna ninku dhalin inayna u qarin sama been wax ay gacmaheeda iyo lugaheeda hortooda ku abuuratay oo been qayaxan ah inaynan haweenku la imanin oo ah ninkaasi ilma uuna iyada ka dhalin oy meelo kale ka soo qaraabatay oo niman kale oo is arkeen inay ninkan u hoosgeliso ay uga dhigtay inuu isagu dhalay taa weeye arrinta la diidaya xaram lama ogola maxaa looga cabiray marka bayna aydiihinna wa arjulihinna sababtoo ilmuhu markuu dhasho gacmaha iyo lugaha hooyada hoostooda kusoo dhaca tamaan ilaan inta badan qofka dumarkii haddaynan ilaahay ka baqaynin oo dadnimo iyo iimaan iyo shaksiyad haddaynan wadin يعني بقول واحد أنت يسمى مرتبة مد مضحى وصار يسالمي أفرشن إن أنت عرفت أو مد البصري لا ساحته بيهل مد لغنته وحريسة يدي إلهي بنا يسوع لكن مد شرفت له إيمانك يفاليوس يقيمها له وقفها قال سن لكن تان قف كان حشوني إن المها يدا أو حقيقة دي سببتها يدا كرنيس سمع وحال دي يا مركز ضد الماء ينان دالين إنه يمحوها أو هوس جليس أو يقول لك تاني يقول دالين سمع ممنوع ولا يأتينا إن رائما ببهتان بين أبور يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وأبيك المؤمنات كذي كوي مادان يبايعنك يجوا قلب الله ميا أو بيعك قلب جليا على الله يشركنا إننا نشري بالله الله إننا نشري شيئا وحبا ولا يسرقنا أين وحبا حد ولا يزني أي قلب الله ولا يزنين إننا زني سنين قلب الله ولا يقتلنا إننا ندلنا أي قلب الله أولادهن المهضة كوا عروش كجري كوا بنانك جوجب ولا يأتينا إننا ليمن أي قلب الله ببهتان بين أبور يفترينه أي كأبورتين بين أيديهن قعمها ظهرته وأرجلهن لغوها ظهرته ولا يعصينك إننا نعصينا أي قلب الله إننا كوا عصينا أي قلب الله في معروف وناك وحوناكسن فبايعهن لبلن بو إلهي بيعضا يبلنك لقب واستغفر لهن إلهي دم بداف ويدي الله الله واستغفر لهن ودم بداف ويدي هوانكاس الله الله ودم بداف ويدي إن الله إلهنا غفور ومدم بداف بدن رحيم ونحريص بدن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور هايدي ولا جبجبينها وحالو جبجبينها صورة بالله وحلو بالله بيبلغوا جبجبينها والريستات وحي لو بالله بيبقى conclusion كي صورة أنا لقدي أو الولاء والبراء يا ولاها لا يا براها لا يا لقبرين غنية يا أيها الذين كوي آمنوا إلهي رميو لا تتولوا حجال هكذا جننا قوما قالوا هكول لجننا قوم كاسوا غضب الله إلهي أعرضي عليهم كركون قال إلهي النعي وعرضي إلهي كل عضي ولي هكذا جننا يا صاحب سمعت وأنا جسمر أدب سورة وصفها في سرنت يعني أنت بقول لي هاي relationship قال يسلام رحمك محي يعني كحرير كران محي كم معاملة كران حدود أيكم معاملة كران أنتي لا أكتهاي محينكم معاملون كرين وكسرت السورة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرج وإنك 10 كورك صامر إلهي وحوليها كول لجننا قوما قالوا غضب الله أعرض عليهم دشوار كواس وقد يئسوا كقوستي من الآخرة آخر كقوستي وأن آخر وح ثوابه يوح أجره iyo wax abaala aan ka sugay aakhire ka qoosteen sababtoo ah waxay uga qoosteen intooda badan maba rumaysnaba bacdi iyo isa soo bixin maba aaminsanaba way ka qoosteen marka sidii iyagu ka qoostay bay la mid tahay kamaa ya isa sida ay uga qoosteen alkufaaru gaaladii min asxaabi alqubuuri kuwii asxaabu alqubuurka ahaa ee qabrigoo galay ee qaraabadooda ahaa sida ay uga qoosteen
sida ay kuwaas uga quusteen gaaladu ay uga quusteen qaraabadoodii saaxiibadooda ahaa ee qabriga galay inaynan aakhare ku kulmaynin inay ku kulmayaan siday uga quusteen qolo aakhare thawaabkeeda uga quusatay oon aakhare waxba uga horraynin ilahay wuxuu leeyahay ka weli dhiganin sidee bay gaaladu uga quusteen saaxiibadooda iyo qaraabadooda asxaabulqubuurka ee qabriga galay sidee bay uga quusteen sababtoo ah mucdamkooda iyo majoritigoodu maba rumaysnaba bacthi iyo nushuur iyo in laysa soo saaray iyo janno iyo xisaab iyo naar ama kamaa iyo isa siday u quusteen alkufaaru gaaladii oo min asxaabi alqubuuri ah gaalada qubuurta ku jirtaan laftooda siday u quusteen oo say u quusteen dee realitigii bay arkeen iyo xaqiiqada wixii loo sheegi jiray ayay arkeen cadaabulqabrigii bay arkeen xaqiiqadii adduunka looga warrami jiray ee rusushii iyo kutubta u sheegi jireen bay arkeen way quusteen marka si practical ay u arkeen ay u quusteen yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyow laa tatawallow ha ka weli dhiganina qowman qolo gadiba allahu kuwaas oo ilaahay u cadhooday calayhim dushooda culimada qaarkood waxay leeyihiin tii horena waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii caduwakum awliyaa gaalada caadiga sida kufaaru quraysh iyo kuwii la midka ah tanna waxay si khaasa uga hadlaysaa bay leeyihiin nimanka ahlu kitaabka gaar ahaan yahuudda sababta iyaga si gaara waxaa ugu soo arooray cadhadii ilahay inay ku dhacday hayr almaqduubi calayhim wala daaliin oo kale laakiin caamba in laga dhigo oo la yidhahdo yahuud iyo hayruhum way soo wada gelayaan ayaa kasii fiican laa tatawallow ha ka weli dhiganina qowman qolo kuwaasoo gadiba allahu alla u cadhooday calayhim dushooda kuwaasoo qadiya isuu ka quustay min alaakhirati aakhira thawaabkeedii iyo ajirkeedii ka quustay oon sugayn aan filaynin rajo ka lahayn kuwa ha ka weli dhiganin nimaan aakhare waxba uga horraynin oon aakhare filaynin oon ku xisaabtamaynin oon u shaqaysanaynin oo thawaab aakharo iyo abaalmarin aakhare ka quustay ha ku faruuxdhan waxna ha ku darsan kamaa iyo isa way quusteen oo aakharay ka quusteen kamaa iyo isa siday u quusteen alkufaaru gaaladii min asxaabi alqubuuri oo kuwii qubuurta galay gaaladii qubuurta gashay ee realitigii iyo cadaabulqabrigii arkay ee wixii loo sheegayay dhadhamiyey siday u quusteen gaalo aakhare ka quustay oon thawaab iyo ajir sugaynin kuwa ha ka weli dhiganin oo waxba ha ku darsanina buu ilahi leeyahy tabaaraka wa tacaala